alxamdulilah aad iyo aad baan iminku u wanaagsanahay tarankana xitaa way kuu dhisaysaa xaniinta qooraha meel walba dhabarka araxda caloosha meel walba cudurkaaga jiro dhanba way sifaynaysaa marka adkaysi unbay u baahan tahay dadkuna markay dawada cunaan halkii xanuunka ku jira bay taabanaysaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah cabdiqani siciid maxamed xirsi oo ku nool magaalada burco niyahow in muddaa ayaan xanuun i hayey dhowr jeer baan farmasiyada dhakhtarada meel walba tegey xanuunkaa waxaa igu daraa waxaan lahaa baabasiir oo gudaha waxaan kaloo lahaa gale oo xaniinta bidix ay aad ii xanuuni jirtay oo barar lahayd oo kaadida igu adkeyd waxaan kaloo lahaa sii weheliyana gooryaankaasoo kiniin walba oo gooryaan haddaan cunana aan caafimaadba waayey caafimaad si walba yeelay xitaa subag idaad waan cabbay gooryaankaas in badan buu ila noolaa in badan buu ila noolaa xanuunkaana waxaan isku arkay gooryaanka igu adkaa uu soo ifbaxay 2009 maanta 2009 iyo maanta 2024 dee in badan baa laga jooga waxay igu sii dareed xanuunkaasi dhabarka aad buu xanuuni jiray adigu kiniin ifashin wax walba qaatay si walba yeelay horta anigoo wax ladnaana oo caafimaad ah weli maan dareemin alxamdulilah doctorka doctor ilaala jecel baa ilaahay i waafajiyey facebooka ayaan ka arkay insha allah waan dhegaystay ilaah baan tala saartay dee nin xanuunsanaya baan ahaa waan la hadlay wallaahi inaanan hore isu oqon doctorka sidaan ilaahay u aamino nin ilaahay aaminsanna wuu yahay qofka haddaad tahay qof ilaahay aaminsan qofka ilaahay aaminsanna waad garanaysaa haddaad faasiq tahayna qofka faasiqa unbaad isfahmaysaan marka alxamdulilah horta doctorka sidii buu dawadii 3 bilood hore waan qaatay xaniintii sidii buu xanuunaysay dabeedna adigu marba sida hore waan dhaamay mar dhiig baan yeeshaa dhiig fara badan baa iga yimaada xagga duburtii bay xanuunta oo waan isla baaxaa degay oo dee mar waan ladnaadaa adigu baryo dhexdaasa adigu dibintaasaan qolfo iyo wax ku lahaayo dee qolfaha dibinta soo fuulan waxa weeyaan waa egfashinka wixii wayga baaba'een dareen waan dareemay in caafimaad ay leedahay 3 bilood markaan sidaa dawadu dhammaystay oon caafimaadkeedii dareemay ayaan 3 bilood ee dambe haddana qaatay gooryaankii iyo wixii adaa sheegayaba xanuunkii adaa sheegayaba dhiiggii halkiiba ku joogsaday fitoololkii adaa sheegaya waxaan ku yidhi caafimaad fudayd baan dareemay dhabarkii xanuunaya qaati billah aan ka taagnaa beredex haddana dawadii iminka wax yar baa ii haro bishaan baa ii hadhay horta wallaahi alxamdulilah waxaan jeclahay inaan 6 bilood oo kale dambena ku darsado waayo faa'iidadeedaan arkay waxaa kaloo kuu soo haray caloosha si fiican buu horta dawadan u sifaynaysaayo saxarada si fiican baa waxunbaa saa kaaga soconaya marka hore dhiig iyo caloon iyo waxbaa kaa soconaya kadib saas kaaga soconaysa kaadida habeenkii xilli dambead iska soo kacaysaa kaadin baa saa u sii daynaysa wixii marka way sifaynaysaa dadkii iminka way yaaban yihiin oo dawadan waxay leeyihin dawa dhereed wey oo lagu dhimanaya war qof walbana horta runtaa wanaagsan qof walba u dhimanaya wixii ilaahay kuugu dilayna cirbadna madaxna allah ka dhigay waad ku dhimanaysa laakiin wallaahi ilaah baa og ilaah baana iga sarreeya oo waxaan ku yidhi inaanan been sheegayn cidna aanan waxba kaga doonayn 6 bilood bishaan aan ku jiro unbaa ii hadhay caafimaadna waan ku dareemay 6 biloodoo dambena waan jeclahay inaan ku darsado marka wallaahi bilaahi aad iyo aad baan ugu mahad celiyey xanuunkii intaasoo sano yahay ilaa 2009 maanta ee aan la liitay ee aan la yaabanaa alxamdulilah aad iyo aad baan uga ladanahay wallaahi dawadani faa'iido badan bay leedahay waxaan leeyahay dee ragow ku dhiirada dawada isticmaala wax dhibaataa male mid duburta laga isticmaalayo iyo mid la calalinayo iyo mid biyo yaroo lagu darsanayo wey taa biyaha lagu darsanayo oo caagada mooye saxada lagu milayo la cabayo taasaa cudurka oo dhanna soo saaraysa caloosha kaaga jira qof waliba caloosha waxa kaga jiray ka soo saaraysa marheer waxaan gaaray halkaa xundurta hoosteeda ay danqato markaan kaadi istiraa kaadida ay dhibto oo markaan israa saxaradu ay dhibto wixiiba
هذا الشيء الحمد لله الحمد لله دكتور كان عادي أدبان وقوم هاد علينا إلهي نوحان لا يهي إمرقي سهراجيو إلي عورنا الله كإلاليو وكفى إذيستا ودودا كفى إذيستا صومالية ملك استاذ شوكتان كفى إذيستا نكي بين موديان أنا أقول مقالة برعان شوكا ويقول إيمان كرا كي برعان شوكا إيا كي هرقسي شوكا ونقول رميا ومدنا ويتقانا دي حويان نمبر كيغانا ديواد هيليسان هذا كشكسنتينا أنا استعمالي إنه حبيقو مسين لكن فائدة وين بي دودا سولاد هاي أنا دوا كلان استعمالي مايو ديب دنبانا استعمال مايو إن شاء الله لحظة بلودة دنبانا إن شاء الله إنو كودر سنان دونيا أو سيدا السنة ككبور غريستو الحمد لله عادي أدبان إمكو ونكسن هاي تران كان حتى ويكود سيسا حنين تقورها ميل والبردبر كأرحد علوشة ميل والبعودر كاغتشورا نمبو يسفينيسا marka adkaysi bay u baahan tahay dadkuna markay dawada cunaan halkii xanuunku ku jira bay taabanaysaa xanuunka ku taabtay bay dadku ka cabaadayaan dhibaato male ninka u adkaysto ma ka bixi kara alxamdulillaah aad baan u wanaagsanahay dawada ka faa'iideysta Soomaaliya meel kasta ay joogtaan dawada ka faa'iideysta oo doctorka ka faa'iideysta waa dawo fiican oo waxaan ku ka fiican wallaahi in adduunyada meel kale laga soo helayo anigu ma garanay dawo walbo caalamka aad tagto cid baaba sir ka daweynaysa iyo cid gooriyaan ka dili karta kiniin gooriyaan dili kara waa anigu ma arag mid walba waa weyn mid cadcad mid cas mid walba waan laq tiga dhiman waa dawada markaan cunana waa taa alxamdulillaah ilaahay ku baabiyey qabsinkii hayana alxamdulillaah aan kaladana oo qabsin baan bartu u liito ugu daraa qabsinkana 900 ilaa meelaha ilaa $1,000 qofka lagu qalaa alxamdulillaah qalinkiina waan ka badbaaday marka doctorka aad baan ugu mahad celinaya ilaa cimrigiisa ha raajiyo war dawada ka faa'iideysta assalaamu calaykum